بسم الله الرحمن الرحيم ووري waxaan mahadcelinaa Allah subhanahu wa ta'ala halka isugu keenay markii xigta waxaan mahadcelinayaa TV-ga saalka iyo runtii isaguna wada shaqay fiican iyo dhanka horumarka gobolka bari gudaha Puntland ka sameeyay waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban idinka siiyo xaaladii u dhameeyay ciyaarihii degmooyinka iyo deegaanka galgalay ka socday muddooyinkii u dhameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ciyaarahaas oo aan uga dan lahayn in isdhexgalka dhalinyarada kor loo qaado ee gobolka bari gudaha Puntland iyo sidoo kale sidii loo dhisi lahaa ama lagu qareemi lahaa garoon kubadda cagta magaalada Boosaaso ahaa targetka ugu weyn in magaalada Boosaaso yeelato garoon kubadda cag runtii koobkaas waxaa ka qayb galay 7 degmo iyo hal deegaan waxaana soo baxay muddadii socday 4 degmo degmooyinka kala Qandala Boosaaso Ufayn iyo degmada isku shuban groupka waxaa ka soo baxay degmada Qandala iyo groupka waxaa ka soo baxay degmooyinka Boosaaso iyo Ufayn ayaa kaalinta koowaad ka soo baxday kaalinta labaadna degmada Boosaaso groupka B-na waxaa ka soo baxay degmooyinka Qandala iyo isku shuban runtii waxaa farxad leh in ciyaaraha kan muddadii ay socdeen si habsami leh qurux badan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaashii iyo kooxihii ciyaartoyda ka qayb galayay runtii oo muujiyay in sportiga gobolka bari runtii sidii loo mareynay si ka duwan runtii haddii taageero noqotay haddii ciyaartoy noqotana uga mahadcelinaa waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo maamulka amniga iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo runtii si gaar aan ugu mahadcelinayo taliyaha qaybta booliiska iyo ku-xigeenka oo runtii muddadii uu koobkaas socday amniga si wanaagsan oo qurux badan iyo dhammaan saraakiisha amniga sugaysa inaan u mahadceliyo insha allahu tacaalaana shalay ayuu sabti ayuu soo gabagabay wareegii gruubyada insha Allah ta'ala waxaan rajayn doonaa hadii la haydmo waqtiga aan saacin doonaa waqtiga rasmiga ah oo dhici doonaan in ciyaaraha soo socda hadii la haydmo ciyaarta koowaad oo ciyaari doonaan degmooyinka Qandal degmooyinka Ufayn iyo isku shuban maalinta talaadada hadii la haydmo ay wada ciyaari doonaan maalinta arbacada waxa wada ciyaari doonaa hadii la haydmo degmooyinka Boosaaso iyo Qandala maalinta khamiista ana waa la nasan doonaa hadii la haydmo maalinta jimcaha finaalka ayaa noo qabsoon doona insha Allah ta'ala dhamaan waxaan ku baaqayaa taageerayaasha iyo ciyaartoyda iyo mas'uuliyiinta iyo cid kasta oo ku sugan magaalada Boosaaso in sidaas ciyaarahaas u socdeen habsamida lahaa ee quruxda badnayd amnigan looga shaqeeyo ciyaarahaas inay si qurux badan runtii aynu ku qabsoomaan dhamaanteen mas'uuliyad bayna ka wada saaran hadii la haydmo dhamaan degmooyinka ka qayb galayana 4 degmo soo baxayna waxaan ku baraarujinayaa inay sidii ciyaarahan uga soo qayb qaateen ay hadda kadib uga qayb qaataan in si qurux badan ciyaarahaas inay ku dhamaadaan in targetka ugu weyn ciyaarahan ka leenahayna wuxuu ahaa in garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso oo runtii xaaladiisa ka war haysaan in lagu qareemo isagoo meel fiican buu marayaa oo uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo maayirka magaalada Boosaaso iyo taliyaha qaybta iyo dhammaan mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Boosaaso sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland oo runtii garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso xil gaar ah iska saaray isaguna oo runtii arintii garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso dhismihiisa iyo qareemadiisa iyo guddigiisuna meel fiican ay marayaan insha Allah ta'ala marka waxaan mar kale ku celinayaa in maalinta talaadada iyo maalinta arbacada ciyaarahaas ay dhici doonaan talaadada oo ay ciyaari doonaan degmada Ufayn iyo degmada isku shuban maalinta arbacada ay ciyaari doonaan degmada Boosaaso iyo degmada Qandala maalinta khamiista aan la san doono insha Allah ta'ala jimcahana uu finaalku noqon doono hadii la haydmo aad oo maasantii